koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay anaa war idiin haya maanta aadan u caraysana dowladda kenya waxay tidhi diyaarad soomaaliya ka soo duushay oo wajeer lagu soo silcin kenya kama soo degi karto korkeedana ma mari karto waa ku faraxsana marba haddii shacabkii wajeer lagu sii silcinayo madaxduuna iska dulmartaa qalad bay baahay carabtaa dhihi jirta kamaanaas laa baasa miya warnimiyo ani warsiin haaye madawiine uhuru kenyaata heesi may erega saasana irkasow aniga malihi weeri madawiine farmaajo sunka dabagaadadi baddasow aniga malihi yeeri uhuru kenyaata mi inkale ware aan la nagadi haddana ninkii dhoof ku yimid baay geerudu dhibaysaa yeeri farmaajo sun markala gundidi miyay dhimishadu iqoontaaye miyaan dhiig bahay ka diiraaye baddasow aniga malihi yakokoobi horta waa sax hadduu uhura yidhi cirkasoo anigu malihi badda iyo dhulkasoo anigu malihi inuu yidhaha farmaajo laakiin waxaan aaminsanahay dulmiga ay kenya waddo doqonnimo annaga ay naga garatay baa u sababa horta kenya inay doqonnimo naga dareentay waa xaqiiqo sababtoo ah shacabka soomaaliyeed caws laga soo gaday bay daaqaan maalin kasta marka anu waxaan dhihi lahaa daandaansiga soo batiya sidaynu u dabacsannahay dad baa ugu talagalaye dibiga magaciisa iyo duulaanka maxaa kulmiyey oo kaalay kenya awal baddaan isku haysanay uhura kenyaati markuu afkeenna ku heysay ayaa u fasaxay war ninka miday isaaqa isku afiyiin faraha ka qaad asaga soo turjumay arhooy ninkii ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa ninkii ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa war maantan iyo calaacalkiinna wuxuu u eegyahay halkii muuse maraqa looga daray maantana hargaysa caasimadda somalilan waxaa laga taagay calankii gini oo lagu xardhay mujaahidkii faysal cali waraabana wuxuu yidhi maanta waxaan joognaa berigii maraykanka daaraha laga dumiyoo kale sababtoo ah dalkiinna aqoonsadaba qoladana jaarka nahay xidhiidhkaabay u jaraysaa marka hootobagaf yar baa lagu soo rogayaana cunaqabatayntii maraykanku kolba soo rogi jiray oo iiraan ku qaadi jiray iyo ciraaq ayay noola imanayaan hortaanuu gabar cashe gini layidhaha baan aqaan giniga istarliinkana beri baan maqli jiray ee aduu geniganaad sheegsheegaysaa ma nin baa mise waa naag war 20 shilinoo soomaaliya gini la odhan jiray naga tag oo war maskax meesha kuma haysaane waa ginigii ictiraafka la siinaya weeyaan kani haa meeqa geniya intiraafka laydinka sii warwar maysiin wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maanta safiiradii adduunka ee soomaaliya joogay safiirkii geniga jiray war safiirkaygii somalilan ma ku jiray war dowladaan ka hadlayaa genina awran xiriir la lahayn na dhegaysta warka wasiir cawad safiiradoo la kulmay wuxuu u sheegay in soomaaliya dadkada qaybinaya ay jiraan adduunkuna uu ka digtoonaado laakiin waxaa la yaab lahayd markii uu yidhi ra'iisul wasaaraha soomaaliya 11 cash ayuu dalka ka maqan yahay war galmudug muu dowlad kale u aqoonsay wasiirka ra'iisul wasaaraha galmudug joogaye warya meegasin laayni kurbarooga intiisan taladan dhiibna dalka shalbara war wasiir cawad kulankii maanta uu safiirada la yeeshay iyo khamiistii markii uu xiriirka u jarayay dowladda gini labadaba wuxuu isticmaalay dowladda kumeelgaarka goormaan kumeelgaar dib ugu noqonna federaal baanu hayne war adeena wasiirkiinna afkiisiiyo dhagihiisaan ismaqlayn war wasiirka sinhamado haytaan hilmaami hadalku ma jiro onaad er waaye warwar ma haysaane sheekh abwaan ra'iisul wasaare khayre oo shalay khudbaddii jimcada uga hadlay xumaanta qabyaaladda aayado qur'aan iyo axaadiisna soo daliishaday dhuusa mareebuu joogaa waxauna u socdaa gaalkacye dibadda aad sheegaysaan ma jiro war nin kastoo dhuusa mareeb taga toban magac muu yeeshaa hore waxaan u ogeyn digtor sheekh ra'iisul wasaare shaakir iyo sheekh madaxweyne xaaf haddana waxaad noo keenteen sheekh abwaan ra'iisul wasaare khayre war lanya walaad hilmaansanta jirta galmudug hoobaada saata maylikiinjeey maalin mahmuud
maxamuud handhoosku goba intiisku aro ijaasi ka siye hofadaas sheeg nago hofadaas abwaag nago idikin yaale war baarlamaanka maanta waxaa ka hadlay xildhibaan abwaan cabdishir cayaar jecel war ilaahay ka cabso xildhibaannimo iyo abwaannimo iyo cayaar jecel isma raacde war hadda sheekh loogu darahayna dhegayso galmudug seedayhe waxa uu yidhi waxaan ka dalbanaynaa ra'iisul wasaare khayre inuu baarlamaanka hor yimaado ee uu caddeeyo mowqifka dowladda ee badda soomaaliya kenya nagu haysato hayaay haddaa loo yaabaa bad kaluuba galay oo maqayru baarlamaanka uga yeedhay war baarlamaanka markii fahad loogu wacay waxa ka dhacay waa la ogaay marka xildhibaan cabdishir ma hadduu khayr u wacay xilkiisa ma rabo miya war ma haysaana qaramada midoobe waxay tidhi 10 gabdhood oo afrikaana 6 ka mid yihiin maqaarka iska fiiq oo waa iscadeeyeen war may dheega jiray ka doran ay godobgooy waleeri ada bilaan lay sheego ay taana magaalkii baa isadaayo hay meeli lijeed ma gorada wana gabar baa waxay tidhi maxamed cali markaan isbaranaynay wuxuu eeka ciyaaryahanka bogba maantana wuxuu eegyahay ciyaaryahanka roney war waa ka soo jawaabay wuxuuna yidhi gabar quruxdeedu make up tahay dhirirkeeduna kaba taakala yahay maxaan kala hadlayaa war ninka ka xishooda gacantii koowaad uu marayaa weli lama gaarin awowgii lagu war ma haysaane jubbaland midda ka dhacday maxaa ka ogtihiin odayaashii dhaqanka xildhibaanada soo xulayey waxaa lagu soo dayeelka casay ninka la dhihi jiray oo qaadajee ruux ruunay ruux rigdhe rig war waxaad ilowday samsamey balisaar samsamey balisaar balaayo ku saart makaasay oda dhaqameed ka dhigeen war ma haysaane waxaas wax ka daran baa kismaayo ka dhacay nin wariye ahaa sawir musharaxan sayid axmed madoobe ahayn commenti uga dhiibta facebookiisa shaqadiyaa laga joojiyey masaafurisna waa lagu xukumay horta filimkii 3 ii keenaan mid kala baxe weli kismaayo ma ka socdaa awowgii la gub show kismaayo waxaad u maleeyay galmudug war ma haysaane dilkii bajaajlayda soo laabtay maantana askari militariya ayaa hal bajaajla qalaf uga siiyey war militarigina ma bax ka sii bay noqdeen war dagonka kana oo ciidan oo bax ka siin lahayna ma bajara war wiil maleeshiya gabiyey aakee haddaan soo gatiyo booshka araxdaaba dabadeedna inamaha kufsado soo askari ma war mid kalena wuxuu yidhi shacabkan jajuubka wadaacada u jabanka jirin karin xaqoodii jidadkiina laga xiray kuwa sii jirdilaya ma ku jimicsanayaan war mid kale wuxuu yidhi shacabkan la dilayo la sii baabi'inaya kuwa sii qarxinaya ma jannay ku tegayaan kuwa kale ma eray bajaajka baasi yaraay baalga mundudana yaraay baaka sii haan leeyo ma dib basiyayaan may lijeedan ni waxaan maqli jiray cabdillah ku yiraani haantan aan daga sheegtaa maalin kasta maxay tahay kugu fogatay intaan la jeebayn wariyaan in nabta horba ma jeebayne war yaa buuqina batay kalamaan ku soo koob inta ayaan sii badina war adana buuq badan walaaye walaaye